ku soo dhowaada Odaros iyo saadaal la xiriirta filinka filo. Falanqayntu waa qaybta la xiriirta 104. Saadaalinta ama Odoroskana waa qaybta la xiriirta 105. Sidaan ognahay Sumaya waxay ku soo noqotay guriga ayadoo runtii tallaabo aan ku dari karin oo dhibaataysan. Waana ka soo hadalnay dareenka waalidka, waana ka soo hadalnay saa ujeedin runtii oo aabeed Maslax iyo habarteed Maandeeq runtii aad bay u murugaysan yihiin. waxayna ka hadlayaan arrinta ku dhacday gabadha. runtii waxaan jeclaaday erey runtii maahmaah ah oo runtii aad u wanaagsan murti ku salaysan Maandeeq tiri. waxay tiri gabadheeda aniga ma inkaarin macnaha inkaar min laakiin afaan celin karaa uurmaan celin karaa. macnaha waxa waaye afka kama inkaarin laakiin uurkii oo waalidkii uu ka xumaanaa ma celin kariya tiri. marka runtii afaan celin karaa uurmaan celin karaa macnaha afka ma inkaarin laakiin uurka inuu ka inkaraa laga yaabaa dhibkan ku dhacay gabadheeda. marka runtii midda kale qaybtan waa qaybta runtii aan raba aad inaan usoo qaato. Sumayo been ayay u sheegaysaa hooyadeed iyo aabaheed. runtiina waxaa fiican had iyo jeer ilmaha in ay waalidkood u sheegaan runta siday tahay. runtii Maslax wuxuu la imaanayaa su'aalo runtii aad iyo aad wax ku ool ah oo runtii aan laga baxsan karin ayuu weydiinayaa Sumayo. waxay tiri nimankii afduubtay waxay ahaayeen 4 nin oo maaskara xiran. su-aalihii oo weydiiyey waxay su-aashii ugu weyneed oo runtii oo weydiiyey oo ka qalqalisay waxay ahayd nimanku afduubtay ma caddaanay ahaayeen mase Soomaaliya ayay ahaayeen nimanka ku afduubtay. waxay tiri ma garanayo nimanka waxaa waaye maaskara ay xirnayeen soo kuma dhihin aabbo. runtii Maslax su-aal weyn oo weydiinaya critical ayuu weydiinaya wuxuu ku leeyahay markaa leeyahay war nimanka 2 maalin ma maaskara ay xirnaayeen nimanka ma dhagoolay ahaayeen ma hadlayn miya see ku keentay niman saa kuu furuxumey oo 2 maalin kula joogay macnaha ma garanay waxay ahaayeen nimanka ma hadlayn miya. su-aashaas runtii meel ay ugu leexata ma jirto. ma jiraan dad 2 maalin maaskara xirana ma jirto. dad aan hadlayn ma jiro. runtii su-aashaas uu weydiiyey ayaa waxaa soo saarayso u noqonayso jidfal. marka dambe afkeedu wuxuu ka soo baxayaa nimankaas waxaa waaye waxay leeyihin nimanka Soomaaliya ahayn. Maslax maskaxdiisa duubana wuxuu soo xasuusanaa hadda ka hor gabadhiisa waxay u sheegtay sheekadii ugu sheekaysay oo ninkii intii yar isyaqaaneen oo isbuuc isyaqaaneen oo intaasoo dahab u keenay oo ka shakinaa qofkaas inuu yahay daraakiista hadda ka horna uu arkay qof darooga gado ama muqaadaraadka gado. Maslax tiyo soo xasuusanaa marka maskaxdiisa si fiican u duubtay wuxuu isku keenay marka ninkii gabadhiisa u keentay iyo ninkii maxamed amiin iyo sharmaaka ay tuseen oo sharmaaka yiri ninkan waa ninka daroogada ii baray oo daroogada ii dhiibay. marka Maslax maskaxdiisu duubtay wuxuu isku keenay wuxuu yiri gabadhaada meesha laga raacay waa meeshaas. intii waxa waaye waa waalid waaye wuu fikiray oo soo saaray. hadda Maslax waxay leedahay ii sheeg maxaa waa gartuu leeyahay. marka arrintaasi waxay noqonaysaa waa iridii laga gali lahaa runtii baaritaankii iyo soo qabashadii Baldoos iyo Mr. Right. runtii taas waa mid oo Maslax wuu gartay in gabadhiisa meesha laga raacay ay tahay meeshaas oo meel kale ayna ahayn. marka Maandeeq wayabanta waxay leedahay waa gartuu yiri talo muxuu gartay. marka runtii taasi waa jidkii ugu horeysay. marka ma noqon doontaa tan jidkii ugu horeysay ama iridii ugu horeysay laga galo oo lagu soo qaban doono raggii odayaasha ahaa ee dhibkan u geystay Sumayo Mr. Right iyo Baldoos. bal aan ka fikirna fikradaas taas aan isku darsan wixii aragtida ah. jidkani ma noqon jidkii ugu horeysay oo lagu soo qaban doono dadkii maadaama Maslax uu gartay qofka dhibaatada u geystay inuu yahay Baldoos oo hore u yaqaanay. taasi waa midda ku xiran saadaasha. Maslax markuu guriga ku soo noqdo oo Sumay ka keenay guriga ku soo noqday oo Sumay ka keenay dhakhtarkii daawad ayuu siinayaa wuxuu leeyahay aab orod bal seexo oo naso wakaasa ka bacdi Maandeeq waxay wareysanaysaa Maslax bay leedahay war markii waa ay tiri waa gartay ay tiri maxaa garatay. su-aashaa markay weydiiso
oo wuxuu ugu jawaabayaa waa gartay nin hadda ka hor ee ii keentay oo baldoos la yidhaaho oo dahab siiye ee iiga sheekaysay ninkaas ayaan ugu shakisanahay inuu gabadhaas xumaantaas ku sameeyey maanta waxay leedahay sideed ku garatay sideed ku ogaatay gabadha ninkan waaba ka hartay ka haraa tiri way ka hartay see ku garatay marka wuxuu leeyahay sheekadaas ayaa waxa dhacday maalin dhowad waxaa ii yimid maxamed amiin iyo walaalkii sharmaake galaashkii igu yimid wuxuuna sharmaake tusay ninkii isaga ah baldoos la dhahay ee gabadha la socotay inuu ninka sharmaake baray daroogada oo sharmaake dhibaateeyey inuu ninkaasi yahay ayuu sharmaake ii sheegay marka wixii ayaa isu geystay oo maxaa u malaynayaa gabadhan dhibkaas inay ka soo gaartay ama uu u geystay ninkaas isaga ah marka sheekada sidaas runtii waxa waaye maslax fikirkiisa meel fiican ayuu qotomiyey runtii maskaxdiisa ayuu ka shaqaysiiyey markuu maskaxdiisa tuujiyey ayaa waxa usoo baxday baldoos inuu yahay ninka dhibka u geystay marka wixii dhan laysku geeyo marka waxay soo xasuusanayaan oo dib u soo xasuusanayaan arrintii gabadhooda oo tacbaan ahayd oo daroogaysan oo in ay maray gurigu ku soo noqotay ayadoo daroogaysan taas ayuu dib ay u soo xasuusanaysaa hooyo maandeeq markii uu maslax ugu sheekeeyo ama odageeda oo ugu sheekeeyo ninkan baldoos khatartiisa heerka ay taagan tahay iyo heerka uu gaarsiiyey sharmaake markuu ugu sheekeeyo waxa waaye hooyo maandeeq waxay soo xasuusanaysaa habeenkii ay gabadhooda oo daroogaysan oo dhibaataysan ee u soo gelaysay ayay soo xasuusanaysaa runtii taasi ayaa keenayso maandeeq in ay qaadato ama ay aaminto hadalka oo u sheegayo odageeda maslax waa kana xusuustii kusoo dhacday gabadhoodii oo cabsan oo dhibaataysan ayaa guriga timid marka hooyada waxay qaadanaysaa waana rumaysanaysaa hadalkaasi markay si fiican u fikirto oo waxay leedahay gabadhana wixii baray daroogada waa raggaas waaye ayaa sabab u ahay marka runtii waxa waaye filinkan iyo magaca uu wato waa isku kooban yihiin filo adduunye wax kasta ka filo waxaan rabaa inaan u gudbo qaybta kale ugu dambayso oo rabnabulbi saadaalinta ku xiran ama oo daraska ku xiran koronto oo si fiican u xarshaashayso iyo sharmaake oo isagana casiriye iska socdo ayaa wuxuu indhaha saarayaa koronto oo runtiis iska qurxisay lacagtii ay heshay indhaha laysku dhuftay sharmaake iyo koronto si fiican isku yaqaanin dad isku gabada ma aha koronto markay aragtay cagaha ayay wax ka dayday sharmaakan wuu ka soo daba orday cabaar yar ayay isku jireen runtii sharmaake wuu kasoo markuu dhex socdo koronto koofida ka dhacayso koofidiisa ayuu arkayaa waa soo daba kacayaa koronto siday u socoto waxay ku imaanaysaa meel luuq ah oo meel laga baxa aan jirin sharmaakana meesha ayuu kasoo dabagalayaa kole meeshan waa meel workshop oo qashinkii wax lagu xareeyo sharmaake runtii wuu dareemayaa inay meeshan gashay waana gabagabada filinka filo adduunya wax kasta ka filo koronto sharmaake wuxuu ku jiraa raadiskii koronto ayuu ku jira oo meel kasta ayuu ka fiirinayaa laakiin markii dambe caqligiisa ayuu ka shaqaynaya waxaan u soo baxayso meel kale oo lagu fakado inayna jirin maadaama meesha meel luuqa ay tahay oo xiran meel kale lagu fakado inayna jirin caqligiisa wuxuu siinayaa koronto inay gashay meeshan qolkan ay gashay ee ku jirto ayuu leeyahay qolka ayuu furayaa marka waxaa waaye waxaan rabaa inaan saadaalin waxay tahay koronto dhididka da'ayo oo meel rafaad ku jirto waa u jeedin meesha wuu galayaa wuuna furayaa laakiinse ma noqon doontaa koronto iyo sharmaake markii ugu horreysay iska hor yimaadiin ma noqon doontaa marka iska hor yimaadiin maadaama baabka oo soo furay filo adduunya wax kasta ka filo marka saadaasha aan saadaalin bal koronto iyo sharmaake inta isku jiraan waa u jeedin marka waa filo adduunya wax ka filo sharmaake ma qaban doonaa koronto oo meesha ma ku kulmi doonaan mase waa arki waynayaa
kulan dambe oo xiiso leh.